inaan qaraxi adiga ugu dhacay una ani horta igu dhicin adiga inigoo telefoon ama wax isku fahmi waayey ayaa miina lagaa daba keenay waxaad ahayn baa lagaa daba keenay maanta aniga waxaan ogahay inay tiigu soo socoto yaa waxaasoo dhan marka qofkii waa igu kuwaaba isa qiilaan waaba ii xanaaqsan yahayba magac miskiinka maaha Abuukar Mahdi waqtigu wuu susumayaa midna waa la sugayaa soo jira ma noole qarni waliba wuu socon safna wuu ka daba dhalan hadbakooda sare kaca waxaa sahayda uga taga kii hor u sagoti Drama show adiga kuma dan laha ee dadka ha iska soocin kani waa Soomaalida shidan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Drama Show ka daawataan xilligan oo kale to waxaana idin soo jeedinaysaa anigoo Agma Dhigaani barnaamijka maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa fanaanada Ilhaan Xaraago aad wada garanaysaan wajigeeduna idinku cusbeen oo ah aktarad jisha filimada markii laga yimaado dhanka fanka anigu hadii mid coday leeyahay ilaa dhanka jilitaanka aan codayn laayo heesaha ka yar beer bandheer halkaba aad ugu sii wanaagsan tahay iyo waxa kale oo idin muuqda fanaanada kale la kaxaajo wacays labadooduba waxay ka tirsanaayeen riwaayad bilaabatay sanadii 2016 oo ahayd qooto ilaa iyo kaafiye kala dheeri ay soo gaadhay fanaanada Ilhaan Xaraago sanadii 2016 waxaa dhalatay fikrad ah riwaayad in la jiro ama filim in la sameeyo buuxin kara habka ay sheegeen musalsalada dalka Turkiga waa sida ay yiraahdeen waxaan buuxinaynaa musalsalada Turkiga ee Soomaalidu daawataan riwaayad u dhiganta ayaan soo galinaynaa oo aan soo jilaynaa kadibna dadku waxay ka soo jeesanayaan filimada Turkiga horta waa filmaan la qarash gareeyo oo shirkad ay lacag ku siiso fanaaniintaasi jilaya ama aktarintaasi loona soo xusho professionalkooda Soomaalideena fanaaniinteena professionalkii iyo jiliinku way haystaan laakiin maamulka ayaa ka maqan hadii la qarash gareyn lahaa oo kaamirada qaaliya iyo waxyaabaha maaragtay Hollywoodka Bollywoodka iyo fanaaniinta badanaa iyo shirkadda hadda Turkiga oo kala baxdayba filimaanta Mexicaanki meel saartay way buuxin lahaayeen ayaan islaayay macal asaf laakiin ma isa dhicin taasi wadankii ayaa burburay fanu halku jooga Abdi Maaxi Muunye magac hadaan qaldiga raali noqo ayaa waxa uu qaaday hees la yiraahdo qooto deedna waxaa dhalatay fikrad ah oo Abuukar Mahdi oo ah farsamayaqaanka telefisyoonka Universal in uu yiraahdo waxaan alifay riwaayad la yiraahdo qooto oo buuxin doonto filimada Turkiga kadib waxaa isugu yimaaday dhammaan fanaaniintii ku sugnayd markaasi dalka UK oo telefishinkaasi isugu tagay riwaayadii aw komba ugu weynaaya wadaanka iyo fanaaniin kale oo ka sii yaro teenager way ka sii qayb qaatay ilaa iyo ku dhawaad 50 fanaan ayaa ka qayb qaadatay barnaamijkaasi haddaba wixii intaasi ka dambeeyay waxaa soo ifbaxay muran aad u xoogan oo riwaayadaasi qooto iyo tushush aad u weyn ayaa soo baxay oo fanaaniinta ayaa laba isku dagaashay iyadoo markii dambe meesha ay noqotay habaan basan ciidaba kuma nooleen laga kala yaaco fanaaniintii kontonka kor u dhaafay inuu samir ka soo harin oo iminka fanaaniintii dhamay ay tiri ana ugu dambeeyay Ilhaan Xaraago Aamina Dhool la kaxaajo wacays Faynus Sheekh Daahir wali ku dambayso Ilhaan Xaraago fanaaniin fara badan waa inta ugu cadcadeed ayaan sheegayaa Faadumiina Faarax Murtiile fanaaniin badan ay Soomaalidu wada yaqaaneen iyadoo xataa qayb Muqdisho laga soo jilaayay qaybna Hargeysa laga soo jilaayay waxa kale oo kamid ahay Marisa Carbona Amara Cali Shoobare Nastaxa Indo oo ka qayb qaadata mararka qaar aduu riwaayad waa la isugu tagay hase yeeshee heer waxay gaartay in la kaxaajo wacays Faadumiina istagaalaan Faadumiina iyo istagaalaan Aamina Muuse aduu sheekada hadda fanaaniintii markay istagaalaan laga yimaado barnaamij dhan ay waxay qabteen sanadii ku xigtay oo ah dhibaatadii ka dhalatay qooto oo ay daadinaysay wariyihii Aamina Muuse Wehliye oo ay ku sheegtay in ay riwaayadaasi dadkaasi lagu qaldoomay dhigitaankeeda oo dadkii isku dhex dagaaleen oo wax dhibaatada ka dambeeyana ay magac dhabeen ay ku sheegeen inuu yahay Abuukar Mahdi haddaba Ilhaan Xaraago ayaa waxay sheegtay wixii dhibaatooyinkaas dhacay 10 kama qaadanayay tiriyo iminka ayaan 10 ka qaatay oo waxay halkaasi ku soo bandhigtay waxyaabo fara badan ee iyadu sheegtay oo ay tiri dhibaatooyinkaas ayuu ninkaasi nagu hayay farsamayaqaanka telefisyoonkaasi oo magaciisa ay sheegtay iyadaba bal daawadayaal waxaa nala daawan doontaan qayb yar oo kamid ah inta ugu muhiimsan ay kaga hadlaysa dhaleecayntaasi oo u soo jeedisay madaxii kaaf iyo kala dheeri sheegtayna in ay guud ahaanba soo gabagabaysay jiritaankii riwaayadii kaaf iyo kala dheeri filim kale cusub la bilaabayana aanan ka qayb qaadan doonin oo halkaasi aan iskaga soo huleelay iyadoo fanaaniin fara badan
dee waa maxay abuukar maadi ummadii dhammayd kaasoo wada sheegatay barnaamij dhan baaba lagu qabtay dhibka jira iyadoo fanaaniintu badanaa ay isaga kala tageen oo iminka qof walbaaba goonidiisa oo isaga wada fankiisa oo waxay duubtaanna hadda laga soo gudbay in qofku kugu gumaystay telefishino youtube-kooda ay kusoo gurtaanoo halkaas ay lacag kaga gurtaan meeshii awlaayaga inta lacag laga sii gurto lagu xumayn jiray haddaba ilhaan xarago oo cabasho aad u ballaaran soo deysay daawadayaal waxaan idinkugu sharaxayaa maadaama barnaamijka codka hadalkeyga inaan idinku badiyay ayaan dareemi karayaa waxaan idinkugu sharaxayaa maadaama barnaamijku aad u dheeraa muhiimadii ayaan idiin soo koobayaa iyo waxa ay ka hadashay in yarna iyadoo magac dhabaysan waa idinkaga soo deynayaa bal iminka waxaad nala daawataan ilhaan xarago arrinkaasi ka hadlaysa adiga mooyaane adigu maad noqon adigu markaasabaad baxdayba qaraxii kugu dhacay horta runtii barnaamijkan caawa waxaan u qabanayaa aan meeshan u fadhiyaa inaan qaraxii adiga kugu dhacay una ani horta igu dhicin adiga inigoo telefoon ama wax isku fahmi waaye ayaa miino lagaa daba keenay waxaad ahayn baa lagaa daba keenay maanta aniga waxaan ogahay inay tiigu soo socoto miinada la kaxajocays laga daba keenay waxay tahay qootqooto markay laki ka tagtay iyadoo hore la isugu sii dhacay baa telefishinka universal laki laga soo caayay oo la yiraahday xataa la yiri bishaare xajocays baa la yiraahdo magacaadi waad ka carartay maadaama taasina caybta telefishin weyn in fanaan laga soo caayay taas ay ka wadaa intaas hadda tii ugu dhicnayaan kasii afiifanaya ay taagan tahay laakiin xanaaga ka qaaday shahaadadii inta youtube-ka la soo fadhiisatay baalaha ka riftay shahaadadii ku ceel burburta waa jirjirta ku daysay taasi waayahay intaas waxaan xasuusinaya dadweynaha ilaahanay noo sii wada aniga marka aanu miino ka dabageyn maayo iyaga laakiin anu haddaan baxo xor baan ahay soo ma taas waa meesha ugu dambeysaan ku baxay iyo sababaan ku baxay anaa sheegi doona waan noqday wada shaqayn baan dhex jirtay waan wada biyo intaysan ku soo gaarin baa la iska moosaa absolutely marka inta ay aniga hadal si kale la iigu bedeli lahaa waa inaan shacabkayga aniga hadda la wadaagaa wixii aan aniga aan ku baxay nacam sababaha ay xasuusiyay wali muddadaana waxa keenaya imikadan bay social media ku socdaa qoraalka iyo dhaga hadalka iyo beenta laga sameeyo iyo warka sida loo rogrogayo inay tii soo socoto wayba ii cadahay haye iska wadataan talabaad qofka fanaan haduu yahay lakiyay ma hadli karmaa la yiri aniga hadaan social media waxba ku soo qorqorin ama sa aan video soo duubin oo aan dadka kala sheekaysan xun iyo santoona qofka social media kama baqayo runtan sida lagama baqo aan waxaan jeclayn waxaan qusinaan ku darsado laakiin runta ma ka timaado dan baa loo soo fadhiisanay tiyo aanad qof naxba u dhimin laakiin exactly waxa jira ka hadlaysid maanta halkan waxaan u fadhiyaa exactly waxa jira ama soo socda inaan ka hadlo okay adigu wada shaqayn baa jirtay waa dhamaatay sheekadii qoto kaafiye kala dheeri baa timiday kaafiye kala dheeri dadweynahana kama qarsoona cidna kama qarsoona xooga aan ka geystay maasha Allah anigoon qofna ay khasbayn ku faraxsan wada shaqayn ama halay saxseexdo ama say doontaa dhacday badanaan dhagahay dadku soo wada tirayeen runtii de ana dhagoolkii baan saga biiro kala hadaan adiga lagu haysan kalarka dhagoolkii baan saga biiro maadaama aan la haysan wixii meesha ka dhacay waxyaalo badan baan arkay anigu laakiin dadku way is dhagooleynayaan anagu wada dhigo waan horta iska wada durnayn ilhaan xaraga waxay tiri aniga la ima haysan markii hore Soomaaliya awalba hore ugu maamaada geeridii galbeed laga sheegay gundahaga ka fiiri dhibaatada markii hore kuma haysan laakiin hadda dhibaatada sota iska laadi ku soo weerartay afkaad furatay ku soo iska celiye is dhagooleynaya maxaad ula jeedaa bal waxaan uga jeedaa maanta adigoo kale oo wiil ah oo ila shaqeeya ayaa dhulka lagu goynaya waa damqanaysaa Soomaa kama hadli kartid ma ka hadli kartid atool haye saatan ma gabadha ku xigto haye hatta labadii baa la istu saa hadana labadii baa challenge la isku sameeyna midaaba soo noqonayo kii kale ku xumeynaya haye sheekooyin caynkaas oo ka yaqiiqsoonayso ayaa ka socda heer waxaanu gaarnay fanaaniintii aan isla shaqeynay kuwa naga sii dambeeyay anaga oo iyo kuwii hore iyo wax walba inaan telefoon isku diri karin inaana waxba u sheegi karin war sheekadii dhacday cadaalad darro ahayd ma dhigi karo xitaa maxaad ula jeedaa bal noo kala saar bal haddaan kuu kala saaro maxaan wax la isugu sheegi karin maxaan la isku qaban karin maxaanan wax la isugu muujin karin marka wixii qaldan maxaanan loogu danqanaynin qofkan dhulka lala gooyay inaan u danqado ilaa waa fanaane ma u danqan kartid sababta waxay tahay qofkani aniga waxa la igu sheegay inuu caafimaad qabin maskaxda ayaa mid waxa uga jirtaa la yiri mishiin maadaama maskaxdiisa shaqaynayn mishiin baa qofkan uga jirta maskaxda caadi maaha ma la murmi kartid ha isku doondoonan ha isku taaban
war waxaan muxuu yahay baaqul yaalo marshaal wuxuu yiri baaqul yaalo hadda bal fiir qof dhan waa waalanta wallaahi waxbaa ka dhacay meesha oo shaarbaha rifan iyo lesan la iskaga majijiyay shaarubka dhulka caadi la isugu xiray meesha maadaama qofku la shaqeynayay qofkan uu waalan yahay qofkan uu xanuunsan yahay qofkan seen hal halin dadka la kala ilaalinaya si aysan waxba maaragtay isugu sheegin ay ka wadaa ilaahan xaragadaan warkeedii idin samaanay bal ku sii soo ilaahanay waa dadka aan wadankan lagu taaban marka idinka miyaas isdhahayo mise may anagii isaga noo sheegay waxa noo sheegay gudoomiyaha meesha magac miskiinka maaha Abuukar Mahdi maamulaha kaligeena maaha intoo dhan baa lagu yiri anigana waxba la igu sheegay iyagoo dhan baa loo sheegay anigu waxaan haystaa inaan dadka madaxan xanuunayaan ogahay kayga warba kama hayaba mid kale waxaa la yiri tiim bay buu leeyahay meesha fadhiista ha ag fadhiisanina mid kale waxaa la yiri aydisu qaba ha ag fadhiisanina waxay cabaha cabina waan saga naxariisanaynaa iska jooga qalbiga ka jabaya wad yaabaysa dadkiina waa dad wada faraxsan oo iska qoqosleey markaan isku imanayna waxaan leeyahay haystarinsiinina waxba inaad kala bacbacaysantiin qosol reer magaal وانا لا isla shaqeynaya waana la kala shaqeysanayaa waan imaanaya walaalkay walaashay waan fadhiisanayaa iska yar durkaya uma dhawaanay waxa meelaha yaal iyo midna oo xitaa hadallada xitaa iguma socdaan ay sheegayaan waan baqayaaba anigu ila caafimaad ma jiro qof waxa la leeyahay kiniinka dawooyinka oo waalidu cunaa dadka waxa ugu fayoba dadka ayaa la suuqa oo naama waxaad aragtay naaba waxbaan ka ilo waxaad aragtay dad maskax yaraan ku dhashay ma jira ilaahay goog maskaxda ku yar qofkaas xaafadiisa laga soo sheegay meeshiis xagee maskaxna ma yaro waa kan qofku waa quman yahay ag taagan yahay waa kan jilay dhaqaajay wuxuu jilayaad la yaabisid haddaad weydiiso ma maskaxda ku yar ama ku kala traynada reer dhawrto maskaxda yar miyaad maqashay waa ku sheegaa qofkaas waa baqaysaa أنا حلي ما شيء أنا تلفون بس كم تنبوف سان كلا قادنا كالسوني ما جرتو no وهجاك داود يا الورلي ما لوده برنامج كذا يقدر أنت سوحي هاي أنت وهم همسن ودبات هذا أي كعبان يساي أهد ولبا وحاجر برنامج كوادو سيدارا يكجسي هذا الشيء فينوس شيخ ظاهر أو فنانة هو الذي قرن كوابري كتر سنة إن أي حتى كأد شيء يسوي تلقفك هو وين ما دام يسن مقعد دوين لكن يتري قفك هو وين فينوس شيخ ظاهر يماني سكربونا أيا كل شيء رواية هولا قرن كوابري كأد شيء حتى إلى دا أبوكر مهدي قفكي أولاد دجالة ويلاد دجالة نايجنا يدو فنانين فربضاني أي هالكاسي كجود السمين أرين كاسي ودر إيا واحد يا وعالم بالليري ورلا أم بيويك عكرون برنامج كان درام شو أنت سيان كسو أفميرنا داوديال برنامج كان برنامج كيسي كل أنت نقول مدونه وحنا كتجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته